الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قصة وحين كو قادن دونا قف دنب والبو قالوا إله سبحانه وتعالى أو النقض. قصة waxa warinaya asxaabiga la yiraahdo Abu Saciid al-Khudri. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qoomamkii ka horeeyay reer Banu Israa'iil waxa kamid ahaa wuxuu ninkaasi dilay 99 qof oo ummadiisa kamid ahayd. Dabadeedna maalin maalmaha kamid ah ayuu ummadii dhex yimi. Dabadeedna wuxuu weydiiyay bal ummadan uu dhex joogo cidii ugu caalimsanayd ee ummadan aqoonta u lahayd. Dabadeedna waxa loo tilmaamay raahib amba wadaad ugu caalimsanaa ummadda dhex joogay. Dabadeedna wadaadkii buu tagay xaalkiisa aan uga waramay. dabeedna wuxuu yiri inni qataltu 99 waxaan soo dilay buuri 99 qof baan soo digay ee fahalli tawba wax tawbada ma leeyahay 99 hore ayaan dilay ee tawbada may furan tahay. caalimku wuxuu ku yiri la wax tawbada aad leedahay ma jirto. faqatalahu fakamala bihi 100. caalimkii amba wadaadkii loo tilmaamayna isagiina uu dilo wuxuu ku dhammaystiray tiradii boqolaad. dabadeed muddo ka soo wareegtay ummadii iyo qoomkii iyo dadku la noolaabo hadana ku soo noqday. dabadeedna wuxuu weydiiyay bal ummadan qof caalimo oo kii hore ahayn ma ku dhex jira. dabadeedna waxa loo tilmaamay nin caalima oo ku nool qaryada ama tuulada. dabadeedna ninkii uu tagay waxa uu ku yiri inni qataltu 99 nafsan waxaan soo dilay buuri 99 qof oo hore soo dilay. kabacdi waxaan u tagay buuri caalim amba raahib. dabadeed jawaab qaldan buu siiyay isagiina 100 baan ku dhammaystiray ee fahalli tawbada may furan tahay. waxaan ahay 100 ka nafood ku maqan tahay tawbada may furan tahay. waxaan wada ogsoonahay waxa la galo inuu wuxuu yahay dhiig muslimiin la daadiyo. ilaahina subhanahu wa ta'ala way naga xarima. caalimku wuxuu ku yiri nacam wa man yahulu baynaka wa bayna rabbik. ها توبة الكفر انتهي بوري محا إذنك يا ربي قاعد يكلا دحيا وحلو حبينا ما كلا دحيان وحلو ربي قاعد قال وكابوري دتك دشين يسقى عبوري تلو ينبو دوتنسي وحكيولا أو أي نباهن هنا وحكو قادنا. عالم كده بوحو كوري انطلق إلى الأرض كذا وكذا نقول كم وقت كتجي يسوي حنا طبعا يسا قرية هلك هلك كتالله. تبدأ قرية لبا قاب أيام فوق دوري أما لبا shakhsi aba laba khasladood ayaa kugu dooray. labada khasladood waxa weeye qaryada aan ku tilmaamay fa inna fiha unaas ya'buduna Allah. qaryada waxa jooga dad baa jooga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caabuda. ka bax dhulkana tag. dabadeed fa'bud ma'ahum Ilaahay la soo caabud dadka wala tarji' ila al-ard. dhulkana dadka kulaysanaha ku soo noqonin bukuuri fa innaha ardun su. dhulkani waa dad xun iyo dhul xun weeye marka ka tag oo saaka ka bax. ninkii uu xidhay xamaamadiisana uu qaatay. dabadeedna wuxuu raacay tixraaci uu caalimkii labaad u sameeyay. waxaan halka ka aqoonsan karnaa qofku hadduu aqoon leeyahay qofka jaahilka inuu aqoon saari karo. qofku haddaan aqoon lahayna inuu naftiisa haligi karo tawmadana uu haligi karo. walaalayaal qisadii oo inoo sii socota ninkii wuxuu qaatay xamaamadiisii saadkiisana uu qaatay. fandalaqa hatta idha wasafa nafs ad-dariiq. ninkii uu baxay dabadeedna markuu maraayo wadadii loo tilmaamay kala barkeedii ataahu malakul maut. malakul maut ayaa ninkii haleelay bartii ayuu malakul maut ugu yimi. dabadeed qisa la yaab la halka ka dhici doonta fakhtasama bihi malaa'ikatu ar-rahmah wa malaa'ikatu al-'adab. ninkii waxa isku qabsaday malaa'iktii naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray iyo malaa'iktii cadaabka. faqalat al-malaa'ikatu ar-rahmah malaa'iktii naxariista loo soo diray baa waxay tiri jaa taa'iban muqabbilan ila Allah ta'ala. ninkani wuxuu u socday inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo cibaadeysto inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo toobad keeno. وقالت الملائكة العذاب ملائكة عذابتنا waxay tiri innahu lam ya'mal khayran qad waliga yaalihin ninkani wax wanaaga muusameyn. فأتاه الملك في صورة الآدمي. لأن ملك الموت كما يقول يمي سقى صورة آدمي قاله صورة غير بني آدم أي ملك يقول يمي. تبدأ نحدو دي أيه شيء. تبدأ نوحولي وحنو سمين دونا كرصار أم بوحنو سمين دونا قريتور
malagii wuxuu yidhi waxaad qiyaastaan dhulka uu ka yimi iyo dhulka uu socdo haddii uu bato dhulka uu ka yimi ninkaas uu xaqii tawbada u socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka uu naxariista haddii uu yaraado dhulka uu ka yimi oo xaqii uu ka yimi uu yaraato ninkaas wuxuu cadaabtii iyo wuxuu ku jiraa iyo dunuubtii malaa'igtii waxay eegeen dhulkii uu ka yimi iyo dhulku u socday inay badan tahay adoonkaasina uu ahaa adoon ilaahay subxaanahu wa tacaala tawbad weydiisanayay waxaanu kaga soo warranay qisooyinkeennii hore walaalayaal inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa leeyahay addoommadaydiiyo haddaad dunuub gashaan aniga ii soo noqda cid kale dunuubaha weydiisanina qisadan walaalayaal waxaynu ku qaadanaynaa kooban qofku hadduu dunuub walba galo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo laabto waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa dunuubta dhaafa allah subxaanahu wa tacaala habeenkii marka 3 meeloodoo meel loo qaybiyo waa uu kacaya samadan dhow buu yimaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 samada u dhow buu yimaadaa dabadeedna wuxuu idhaa yaa dembi dhaaf weydiisanaya dunuubtiisa u dhaafa qofkii marka hadduu dunuub walba sameeyo jaanis baad haysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dhaafayo subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk